بسم الله الرحمن الرحيم أخيارت قيمها بدن كسو دوادا تلفزيون كعالمي جاي LG Somali TV وأنا جلس عطان وركا يهضب واحد تاجن جيسك أفريقيا يدولك الصومالي دبا وحين سوق هذا دون رئيس وزراء ودن كإثيوبيا قلالاسها كتاجن ودن كإثيوبيا رئيس وزراء ودن كإثيوبيا والله هذا ورفدينا ضع gudaha iyo kuwa caalamigaaba ayaa waxa uu yiri cadawga gudaha ayaa ka dibadda waan iska celinayna ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay magaalooyinka Alamata Karama inay dib u qabsadeen xogaga TPLF waxaanu sheegay in dawladdiisu ay samaysay wax kasta oo suurtagal ah bayaan ka soo baxay dawlad deegaanka Amxaarada waxaa lagu sheegay in ciidamada TPLF ay qabsadeen magaalooyinka Alamata Karam way ruqansadeen dhinaca Walqata Tagaade iyo Satita Humera sidaas ayay u qabsadeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Mudane Abiy Ahmed ayaa bartiisa baraha bulshada maanta oo Isniin ah waxa uu sheegay in kastoo ay dawladda federaalka ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ay u gol leedahay in shacabka Tigreega in la gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo xilli beeraadkana ay ka faa'iideystaan haddana xogaga TPLF waa ay joojin waayeen xabad joojinta waxaanu ku tilmaamay marka ay dawladdu samayso wax kasta oo suurtagal ah inay joojin waayeen xabad joojinta ay dawladda dhexe gaartay si kale ayay u qaateen waxaanay bilaabeen inay deegaanka Tigreega ka horayaan colaad hor leh waxaanu yiri beesha caalamku waxay isku dayayaan inay wadooyinka loogu talagalay shacabka Tigreega gargaarka loo mariyo ay TPLF dagaalka uga faa'iideysanayaan haddana hay'adaha gargaarka caalamigu waxay isku dayayaan inay dawladda eedamo aanay mudnayn u soo jeediyaan dawladda dhexe ee Itoobiya toddobaad ka hor ee xabad joojinta ku dhawaaqday balse TPLF waxay xabad joojinta ku xirtay 7 shuruudood shuruudahaas waxa kamid ahaa ciidamada Eritrea iyo kuwa deegaanka Amxaaradu inay ka baxaan deegaanka Tigreega oo ay ku laabtaan dagaalka ka hor halkii ay joogeen maamulka deegaanka Amxaarada dhankiis waxa uu sheegay deegaanada ay shacabka Amxaaradu muddo u soo halgamayeen ee jiritaankooda ku xiran sida deegaanada Raaya Alamata Walqayta Sagaade iyo Satiti Humera inay difaacayaan Abiy Ahmed fariintiisa waxa uu ku sheegay shacabka Tigreega dareenka aan u qabno iyo beesha caalamka heerka aanu joogno markii ugu horeysay ayaan tusnay waxaanu intaas ku daray nabadda ayaa nooga baahan xoogaa nafurid ah haddana waxaan ognahay xalka ugu dambeyntu uu yahay nabad innaga oo dadaal ugu jirna inaanu fududayno hawlaha gargaarka bini'aadanimo ee lagu gaarsiinayo deegaanka Tigreega haddana dhinaca kale cadawgeenu gudaha iyo dibadda oo iskaashanaya waxay nagu soo qaadeen dagaal ay u midaysan yihiin kuligeedna waynu iska celinaynaa ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu nafuridda shacabkayaga inaynu samayno waxay ka faa'iideystay kuwa daciifka ah ee aan fahmin natiijada xogaga TPLF inay yihiin cadawga ugu weyn ee jiritaanka Itoobiya waxa cadaynaya ficilada innaga shacabka Itoobiya oo dhan kaashanayna cadawgaas waynu iska difaacaynaa waynu ka guuleysanaynaa dagaalka bishii November 2020 ka qarxay ciidamada dawladda dhexe iyo kuwa TPLF kadib markii ay maleeshiyad daacad u ah TPLF weerar saldhigyada waqooyiga dhinaca federaalka ku qaadeen dagaal socday 7 maalmood waxa ku dhintay kumanaan qof inkastoo aan tirada rasmiga aan lahayn ciidamada dawladda dhexe ayaa bishii June 28keedii 2021 markii ay ka soo baxeen deegaanka Tigreega xogaga TPLF waxay bilaabeen inay dib u qabsadaan caasimadda Maqalla iyo magaalooyin kale oo deegaankaas ku yaala deegaano min muddo ah ay ku muransanayeen shucubta Amxaarada iyo Tigreega waxa gacanta ku dhigay maleeshiyadka gaarka ah ee Amxaarada tan iyo markii dagaalka Tigreegu bilaabmay deegaankaas Tigreega hoostegay balse Amxaaradu ay sheegatay waxa kamid ahaa Walqayta Sagaade Satita Humera Talamati iyo Raaya halka nagala socotaan waxa weeye telefishinka caalamiga ah ee LG Somali TV